وتعالى وككل سورة العنكبوت آيات اللبات ما وحو أملي دادكو إن لوغاغا تغي إنay dhahaan waan rumaynay oo kaliya oo aan la imtixaamaynin dabcan nolosha oo idil waa imtixaan qofkuna siyaabo kala duwan ay ku soo mari hadii ay ahaan lahayd caafimaad ama cudur taajirnimo ama faqri xoog ama tabar yari cilmi badan iyo cilmi yari darajo sarreysa iyo xorriyad darro way badan tahay ma soo koobi karno oo qofku kaliya kuma filnaanayso in uu dhaho ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa rumeeyay kadibna uu sameeyo dhaqamo xun raacina waayana jidkii wanaagsanaa ee ay faraysa diinta islaamka imtixaanka noocyo kala duwan ayuu ka yimaadaa qofka ayayna tahay in uu fahmo xaaladda uu ku jiro waxa looga baahan yahay in uu sameeyo si uu ugu dhawaado rabbigiis oo uu rumeeyay aayadda ku xigta ee suuratul cankabut waa tale dhab ahaan ayaan u imtixaanay kuwii ka horeeyay allahna wuu muujin kuwii run sheegay una muujin kuwa beenlowga ah dhulkan waxaa soo maray ummado kala duwan oo ayna maanta garan karin xilliyada ay ku noolaayeen dhulka iyo ilbaxnimooyinkooda ay ka tageen heerarka ay gaarsiisnaayeen iyagoo oo moodi jiray in ay ku waari doonaan nolosha dhammaantoodna waxaa la soo kulmeen imtixaano kala duwan qaar cilmi badan baa la siiyey qaarna awoodo xad dhaaf ah ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyey qaarba nooc lobaa loo imtixaamay inaguna maanta imtixaano kala duwan ayaynu maraynaa allah subxaanahu wa ta'ala ha inoo fudaydiyo kuguulaysiga imtixaanka nolosha waqtigeedu kooban tahay dadka inta badan imtixaanka fahmi waaya ama ku guul dareysta waxay iska jeclaadaan in ay dunidan ku sii waaraan oo ayna dhimanba gabowga uuna taabanba laakiin qofna kama baxsan karo saacadiisa waqtina kama go'o ugumana darsamo oo qof waliba waqtigiisa ayuu ku tagi dhammaan waxa loo noqon ilaahay subxaanahu wa ta'ala si qof walba uu helo cadaaladu mudnaa sida daraadeed imtixaanadu Allah subxaanahu wa ta'ala na imtixaamayo waxa kamid ah tirooyinka ilaahay markuu leeyahay suuratul mudaththir aayadda 30 waxaana kor jooga oo ka shaqeeya 19 ilaaliye ama saf aayadan waxay ku jirtaa aayado tiro qeexaya oo ku jira quraanka kariimka ah laakiin quraanka micnihiisa lama fahmi karo marka hal aayad kaliya la soo qaato ama qayb kamid ah aayadda ka horeysa waxay ka hadlayaan dadka iskibriya oo ka jeedsada quraanka kadibna dhaha quraankani ma ahan waxa sixir la soo guuriyay ahayn ama hadal bili aadam ah iyagoo iska indho ama dhagatiraya xujooyinka quraanka uu la yimid iyo shakhsiga lagu soo dejiyayba waa nabi maxamed dadka sidan yiraahda waqtigii uu quraanku soo degayay ilaa maanta way joogaan iyagoo kaliya ku kala duwan xilliyada wayna sii jiri doonaan iyagoo dhaqankoodu isa shabaho ama sii kala liitaba kadib Allah subxaanahu wa ta'ala ayaan ballan qaadaya dadka sidan idhaha sida uu ka yeeli doono waxaana loogu sheegayaa aayadda 26 ilaa 29 Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu inoogu sheegayaa naarta saqara iyo siday ula dhaqmi doonto gaalada uu galin doono nasiib darro dadyow kala duwan oo isugu jira muslimiinta iyo kaafiriinba in ay fiiriyaan oo ay akhriyaan aayaddan ayaa waxay kala baxeen kaliya tirada 19 ka ilaaliye ee ay noo tilmaamayso aayadda 30 iyadoo uu qaatay naaraha Allah subxaanahu wa ta'ala inay ilaaliyaan 19 ilaaliye waa 19 malage tirada uu adeegsanayna ay ku sameeyeen sixir iyo indhasarcaad halaag ku noqday bini aadamka runtii dadkani haday fiirin lahaayeen oo ay fahmi lahaayeen micnaha aayadda ka dambaysa midda tirada 19 ka ilaaliye ee naaraha oo idil u qaateen in ay ilaaliye ka yihiin waxa ciriiri ku noqon lahayd nolosha adduunka aayadda 31 waa ki Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kule ugama aanan yeelin naarta kuwa ka shaqeeya malaa'ig tirada uma uunan yeelin inay gaaladu ku fitnoobaan mooye iyo inay yaqiinsadaan kuwa kitaabka la siiyay iyo inay kordhistaan kuwa xaq rumeeyay iimaan ayna shakiyinna kuwa kitaabka la siiyay iyo muuminiinta iyo inay dhahaan oo ay ku mormaan kuwa qalbiga ka buka waa munaafiqiinta ah iyo gaaladu Allah maxaa uga jeedaa tusaalahan saasa rabbi u dhuminaya ruuxu doono una hanuuninaya ruuxu doono aayadan waxay ku bilaamaysaa ugama aanan yeelin naarta kuwa ka shaqeeya malaa'ig tirana uma aanan yeelin inay gaaladu ku fitnoobaan mooyaane tani waxaan ka fahmi karnaa in ay tahay imtixaan in ilaalada naarta saqara ku tilmaamo malaa'ig tirada 19 ah una u yeelin kaliya in gaaladu ku fitnoobaan mooye waana midda maanta inoo muuqata fitnadoodu halka ay la gashay tirada 19 ah sidoo kale aayadda Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu inoogu sii sheegayaa inay yaqiinsadaan kuwa kitaabka la siiyay iyo inay kordhistaan kuwa xaq rumeeyay iimaan ayna shakiyinna kuwa kitaabka la siiyay iyo muuminiinta xujada waxa ka mid noqon kara in kuwii kitaabka la siiyay waa yahuudi iyo nasaare ay tirooyin kale oo xujaha ugu taal kitaabkooda
ilaahay baa oge. laakiin qofka iimaanka leh tirada 19 ma ku sii mashquulayaba sababtoo ah xujooyinka ka waaweyn ayuu arkaa. sidaa daraaddeed su'aal iskama weydiinayo tiradan kooban in uu iimaankiisa ku sii siyaado mooye shakina uuna u gelin. tirada aayadda ayaa la noogu sheegay sida ay ugu dhumaan dadka oo waata leh iyo inay dhahaan oo ay ku murmaan kuwa qalbiga ka buka waa munaafiqiinta iyo gaalada. Allah muxuu uga jeedaa tusaalahan? saasuu rabbi u dhumiyaa ruuxu doono in qofku su'aal iska weydiiyo waxuuna heli karin jawaabteeda. waa waxyaabaha ugu horeeya ee qofku ku dhumo maadaama uu isku dayo inuu alifo jawaab isaga qancisa ama uu raadiyo xiriirka noole aan la noo ogolayn in xiriir la sameeyno sida jinka. marka munaafiqiinta iyo gaaladu waxay isweydiiyeen muxuu Allah subxaanahu wa ta'ala uga jeedaa tusaalahan iyagoo aan dhab ka ahayn helidda jawaabta saxan. sidaas daraaddeed Allah wuxuu sii dhumiyaa dadkaas maadaama ay qalbiga ka bukaan oo ayna marna ku qanci doonin jawaabta. mucjisada uu quraanku leeyahay waxaa ka mid ah qayb yar haddaad isku daydid in aad qaadatid oo aad fahantid ama aad u adeegsatid dana kuu gaar ah waad ku sii dhumi. Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa inoo sheegaya sidaas inuu ku dhumiyo dadka. laakiin jawaabta isla aayadda dhammaadkeeda ayuu Allah subxaanahu wa ta'ala ku lifaaqay oo inoogu sheegay marka uu yidhi wax og junuudda Allah oo aan isaga ahayn ma jiro. waxaa la soo sheegayaa faahfaahinta naarta saqara ma ahan waana dadka mooye. maadaama tirada 19 ilaaliye ahayd fitno gaalada iyo munaafiqiinta loogu talagalay qofka iimaanka leh jawaabta waxa uu ka helayaa in ayna jirin cid ogaan karta tirada junuudda waa ciidanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga mooye. tiradan iyo 19 iyo malaa'igtaba waa uu waano dadka loogu talagalay. sidaa daraaddeed ma inoo furna in aan ku sii koobno ilaalada naaraha 19 malag sida ay gaalada iyo munaafiqiintu sameeyeen. sidaa darteed waxa inoo wanaagsan in aan tirooyinka Allah subxaanahu wa ta'ala quraanka inoogu sheegay sida yihiin u qaadano oo ayna iska weydiin micnaha uu kala jeedo. tirooyinka faahfaahin leh uu inoo sharxay nebigu naxariis nabadgeliyo ee ku xiran nolol maalmeedkeedana ugu dhaqano sidii wanaagsaneed ee nebigu naxariis nabadgeliyo korkiisa aatee uu ugu dhaqmay maadaama tusaalaha kaliya ee aan raaci karno tahay. haddii kalena aynu dhumayno kuwa muslimiinta ee tirooyinka sida qaldan u adeegsadana ama xumaanta ku sameeyana ka toobad keenaan dembi dhaafna ay weydiistaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. sidaan hore kuugu soo sheegay shayaadiinta iyo shaqaalahoodu waxa ay sameeyaan sixirka iyo indhasarcaadka jihada ka dhumiya dhammaan dadka markii laga reebo in kooban mooye oo fahma in gaalada iyo munaafiqiintu waxa ay sheegeen sinaba loo aamini karin. waxaan ku sharxi doonaa tirooyinka qaar oo ay adeegsadaan in ay ku fasahaadiyaan dhulka iyo dadka ku nool badankiisa iyaga oo soo bilaabay xilliyo fog maadaama shaydaanka balantiisu uu weli ku taagan yahay oo uu dhumin doono inta qof ee u fududaato inuu ka leexiyo jidka toosan. Allah uu kala ballamay in isaga waa ibliis iyo inta raacdaba uu ku guri doono naarihiisa. inta jidka ibliis iyo fidnooyintiisa ka leexatana uu dambi dhaafi doono ama uu dambi dhaafi doono gelina doono jannooyinkiisa. Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu bila aadamka markasta u soo dirayay nebiye iyo rasuulo uga waca ama uga diga dadka jidka xaqa ah kagana diga jidka shaydaanka la nacdalay iyo xumaantiisa. nebiyada iyo rasuulada tirada badnaa ee inta yar ee magacyadooda loogu sheegay quraanka iyo inta aan la noo sheeginba uu ugu dambeeyay nebi Muhammad calayhi salaatu wasalaam. sidaas darteed qof kasta oo nebinimo sheegta rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kadib waa mid ka mid ah beenaalayaasha shaydaanka.